Asalaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu kusoo dhawaada warka tubsan media oo idin haya caawa madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo wadahadal qarsoodi ah kala galay muranka badda dowladda Kenya. dowladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay askartii ay dileen ciidamada AMISOM nin hubeysan oo gaari biyaha ka dhex toogtay ganacsada Soomaaliyeed ahlu sunna iyo dowladda federaalka oo qarka u saaray inay ku kala tagaan qodobo uu qayra dalbaday warkii ugu dambeeyay ee Galmudug iyo dil maanta ka dhacay Muqdisho qayre iyo xaaf oo gaaray heshiis ka kooban 5 qodob madaxweyne Waare ayaa digniin ka soo saaray dagaal beeleedyo ka soo cusboonaaday maamulka Hirshabelle al-shabaab oo dishay 75 jir ay sheegeen inuu gabar iyo hooyada isla guursaday qodobadaasi qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeena habeenimo ku soo dhawaada warkaasi oo intaan ka faahfaahsan madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in ay jiraan warar oo soo baxayay maalmihii ugu dambeeyay isla markaana mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo ay doonayaan in markaa wada hadallo ay kala galaan oo ay kala yeeshaan kiiska badda dowladda Kenya waxa uu sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya laga doonayo inaysan wada hadal markaa la furin dowladda Kenya taasoo halis gelin doonta kiiska badda Soomaaliya waxaa jira xog isa soo taraya oo tibaaxaya in madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya ay wada hadallo iyo markaa kulamo qarsoodi ah ay ku doonayaan in ay gorgortan iyo wada xaajood kala galaan qadiyadda badda ee nagala dhexeysa dowladda aan dariska nahay ee Kenya qadiyadaas oo ah qadiyad qarameed iyo mid umadeed oo hortaala markaasi maxkamadda cadaaladda adduunka ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Guuleed ayaa sidoo kale madaxda qaranka waxa uu ugu digay in ay wax gorgortan ah iyo wada hadal markaasi ay ka galaan taako ka mid ah geyiga iyo dhulka Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxa ay war ka soo saartay askartii ay dileen ciidamada AMISOM maalin ka hor ayay ahayd markii mid ka mid ah gaadiidka AMISOM uu deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ku dilay 3 ruux oo markaa watay mooto kadib markii uu jiirsiiyay ama markaa uu dulmarsiiyay waxaana 3daasi laba ka mid ah ay ahaayeen askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya waxaana markii ugu horeysay falkaasi ka hadashay dowladda Soomaaliya taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafika ee gobolka Banaadir General Maxamed Xuseen Madaale oo shir jaraa'id qabtay warbaahintana markaa u qabtay ayaa sheegay in ay arkeen cabashada ehlada dadkii markaa AMISOM gaariga ay jirsiiyeen waxaana uu sheegay in gaadiidka AMISOM ee falkaasi geystay gacanta lagu dhigay isla markaana wada hadal kadib ay qirteen ciidanka AMISOM waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray General Madaale inay dhacdadaasi ay wax ku noqdeen 2 askari iyo darawalka mootada ay diiwaan geliyeen isla markaana AMISOM ay sheegtay inay diyaar u tahay inay ka xaajooto falkaasi ehlada dadka shilkaasi gaariga ku dhintay ayuu ugu baaqay in ciidanka booliska ay baaritaano ku hayaan sida dhacdadaasi u dhacday isla markaana dowladda Soomaaliya ay kula xisaabtami doonto ciidamada AMISOM ay ka dambeeyay falkaas nin hubeysan oo gaari biyaha markaa ka dhex toogtay ganacsade faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya toogashada uu si la yaab leh markaa u geystay nin hubeysan ee duleedka magaalada Muqdisho dilka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in loo geystay nin lagu magacaabi jiray Cali Bashiir Muuse kaasoo ahaa ganacsade marxuumka ayaa la dilay xilli uu hortaagnaa goobtiisa ganacsiga oo ku taala duleedka Muqdisho dad goobjoogayaal ayaa tubsan media u sheegay in marxuumka laga dhex toogtay gaari BL gaar ahaan hoomay ku socdaaleysay wadada marta Treedisho ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kale ila dhinaca ammaanka ayaa inoo xaqiijiyay in gacanta lagu soo dhigay wadihii gaariga
balse waxa uu tilmaamay in ninkii dilkaasi geystay uu ka degay gaarigiisa islamarkaana uusan garanaynin. kooxda Ahlusunna ayaa diiday shuruudo iyo qodobo markaa uu soo bandhigay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre intii lagu guda jiray wadahadal markaa dhex marayay labadaasi dhinac. waxaa sidaasi markaa u kuurgashay oo ogaatay Tubsan Media. ila wareedyo markaa lagu kalsoon yahay ayaa Tubsan Media u sheegay in ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu dalbaday in heshiis kasta oo dhex maraya dowladda iyo Ahlusunna ay sidoo kale ku jiraan ama ku jirto in la qarameeyo ciidamada Ahlusunna. Kheyre ayaa Ahlusunna u sheegay in uu doonayo in ciidamada kooxda ay ka mid noqdaan militariga dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan guutada 21aad, si ay markaa dowladda uga caawiyaan dagaalka ka dhanka Al-shabaab ee gobolada dhexe. qorshahan ayaa qayb ka ah qorshaha guud ee ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya ee dib u habeynta ciidamada iyo xoreynta dalka, wuxuuna soo jeediyey in markii ciidamada Ahlusunna la qarameeyo ay ku biiri doonaan islamarkaana ku biirayaan ciidamada kale ee dowladda oo qaadaya howlgalka Al-shabaab looga saarayo meelaha ay markaa ku harsan yihiin ee gobolada Galgaduud iyo Mudug. kastaba ha ahaatee, arrintan oo Ahlusunna ayaa u muuqatay inay ka diidsan yihiin ciidankooda inay ku biiraan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna sheegtay inay sii ahaan doonaan ciidamo xireed balse ay diyaar u yihiin inay dowladda caawiyaan haddii ay mushaar u qorto. sida aan xogta ku helayno, Kheyre ayaa uga digay Ahlusunna inuusan jirin doonin heshiis dhex maraya kooxdan iyo dowladda haddii aysan qodobada muhiimka ah aqbalin. labada dhinac ayaa la filayaa in wadahadallo kale oo dheeri ah ay ka yeeshaan, hase ahaatee waxa ay hadda kala taagan yihiin meel aad u kala fog. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo kula yeeshay magaalada Cadaado ayaa soo saaray go'aano markaa wadajir ah oo la xiriira maamulkaasi. wadahadallada labada dhinac oo miradhal laga gaaray ayaa waxaa looga hadlay arrimaha dib u heshiisiinta doorashooyinka Galmudug iyo sidii markaa loo dhameyn lahaa kala aragti duwanaanshaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug. sidoo kale waxa ay isla garteen in Dhuusamareeb ay noqoto caasimadda loo dhan yahay oo leh maqaamkeeda, islamarkaana hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug ay si buuxda uga howlgalaan magaaladaasi. falanqeyn iyo wadatashi dheeri kadib waxaa la isla gartay oo meel la isla dhigay qodobadan. mudug iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya 28 bishii Juun 2019. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa wada hadallo arrimo miradhal ah ku yeeshay magaalada Cadaado maalintii Khamiista ee taariikhdu ku beegnayd 27 Juun 2018. ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa ka wada hadlay qodobo muhiim ah oo la xiriira arrimaha dib u heshiisiinta doorashooyinka Galmudug iyo sidii loo dhameyn lahaa kala aragti duwanaanshaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug. falanqeyn iyo wadatashi dheer kadib waxaa la isla meel dhigay qodobada hoos ku xusan. 1. madaxdu waxay si wadajir ah u bogaadiyeen soo dhaweyntii diiraneed ee 26 Juun 2019 loogu sameeyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali kheyre magaalada Cadaado. 2. madaxweyne Xaaf iyo ra-iisul wasaare Kheyre waxay isla garteen in la dejiyo geedi socodka iyo hanaanka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka si loo helo Galmudug midaysan. 3. in dowlad goboleedka Galmudug ay qaadato kaalinteeda kaga aadan arrimaha dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka iyada oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. 4.
si ay u noqoto caasimad loo dhan yahay oo leh maqaamkeeda. waa inay hay-adaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay si buuxda uga howlgalaan magaalada dhuusamareeb. 5 in dowladda federaalka soomaaliya ay soo celiso kabistii miisaaniyadeed ee galmudug si loo dardargeliyo arrimaha amniga iyo adeegyada kala duwan ee bulshada galmudug. dhammaad. wabilaahi towfiiq. madaxweynaha hirshabeelle waare waxa uu isna digniin u soo saaray u jeediyey dadka ku dagaalamaya deegaanada hirshabeelle. madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo la hadlayay warbaahinta tubsan media ayaa digniin ka soo saaray dagaal beeleedyada kasoo cusboonaaday qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya. madaxweyne waare ayaa dagaalkaasi ku tilmaamay kuwa fidno markaa ku ah oo aanan la aqbali karin, wuxuuna sheegay in ay ka hortegi doonaan dagaalkaasi. ugu dambeynna al-shabaab waxa ay dishay 75 jir la sheegay inuu gabar iyo hooyada isla guursaday. kooxda al-shabaab ayaa fagaare ku yaala deegaanka Toorotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose ku toogtay nin 75 jir ah oo markaa la oran jiray Abshir Maxamed Cabdi kadib markii lagu eedeeyay inuu guursaday Cadey Manuur Khaliif iyo sidoo kale hooyadeed Xaawo Cabdi Biile. sida ay sheegtay maxkamadda al-shabaab, ninkan ayaa waxaa soo dacweeyay Xasan Khaliif Aadan oo adeer u ah Cadey, isagoo markaasina Abshir ku eedeeyay in uu gabadhooda guursaday haldana uu ka dhalay xilli uu horay markaa hooyadeed u qabay. Xasan ayaa dacwadiisa waxa uu sheegay in Abshir uu gabadha la dhuuntay isla markaana meel baadiye ah ku soo nikaxsaday iyadoo weli la'aan ah. Abshir ayaa beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay, wuxuuna sheegay inuu gabadha guursaday laakiin aanu guursan hooyadeed. sida lagu sheegay qoraalka ay baahiyeen warbaahinta al-shabaab, intaa kadib waxaa Abshir ku markhaati furay dadka deegaanka oo la socday kiiskan. qaadiga maxkamadda al-shabaab ayaa sheegay in markhaatigu uu ansax yahay, sidaa darteed waxaana lagu xukumay dil toogasho ah kaasi oo lagu fuliyey. guud ahaan warkii caawa ee tubsan media intaasi ayaa kusoo afmeeraynaa. warkan warka xiga intaa dib ugu kulmi doono, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe noo dheh janaalkeedna si aa ula socoto islamarkaana aad u daawato muuqaalada cusub ee aan soo dhigayno. sida ay nabadgelyo.